السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ميل والبو aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena Hikaaji. qofka casharka ku soo jeedinaya waa Muxyidiin Cabdi Cali. casharka aan qaadanana maantana waa barashada Ingiriiska. casharkani wuxuu ku saabsan yahay qoyska. casharkani wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood: ereyadii Ingiriiska ahaa iyo af Soomaaligoodii ama micnahoodii iyo af Soomaali ah. ereyadani waa 10 erey, 10koodii macnoodna waa ku hor yaalaan. erey walba numberka uu leeyahay ayuu macnihiisuna leeyahay. ereyga koowaad oo Ingiriiska parent waa waalid. haddii estas lagu daro waxay noqonaysaa waalid. ereyga waalid oo Soomaaliga ah saasuu jamac ku yahay. laakiin haddaad tiraahdo parent waa waalid, hal waalid baa laga yaabaa inaad ka hadlayso waalid. okay, ama waalid. ereyga labaad grandparent. grandparent waa awoowe ama ayeeyo. waa mataqaanaa waalidkaaga ciddii dhashay wey, waalidkaa waalidkiis wey. grandparent waa awowga ama ayeeyda. siblings. siblings waa walaalo, wiilasha iyo gabdhaha kula dhashay ayaa waxaa la isku yiraahdaa siblings, waa walaalaha. children waa caruur, ciyaalka aad dhashay children baa dhiyada. cousins waa ilma adeer ama ilma abti, wiilasha adeerka ama waxa weeye abtiga u dhalay iyo gabdhahaba waxa la yiraahdaa cousins, waa ilma abti ama ilma adeer. aunt waa eedo ama habaryar. auntie waa eedo ama habaryar. uncle waa adeer ama abti. Ingiriiska labadan erey auntie iyo uncle wuxuu labadaba u isticmaalaa. marna auntie wuxuu isticmaalaa eeda iyo habaryar oo kolba wixii laga hadlayay mataqaana sheekadu de ayada isfasiraysa. kolba wixii laga hadlayo ayaa loo aqoonaya. haddii habaryar laga hadlayo habaryar baa loo qaadanaya, haddii eeda laga hadlayo eeda loo qaadanaya. uncle-na sidoo kale haddii adeer laga hadlayo adeer baa loo qaadanaya, haddii abti laga hadlayana abti baa loo qaadanaya. niece waa gabadhaad abtiga ama adeerka u tahay. gabadhaad abtiga ama adeerka u tahay waxa la yiraahdaa niece. this is my niece baa leedahay. tani waa gabadha abtiga u ahaa ama adeerka u ahaa. nephew wiilkaad abtiga ama adeerka u tahay ayaa asagana waxa la yiraahdaa nephew. in-laws waa maxay? in-laws waa xidid, waa dadka guurku isku keenay. dadka guurku macnaa isku keenay laba mataqaanaa tusaale ahaan kale waxa ka tiin laba deegaan oo kala duwan baa ka degtaan, laakiin wiilkiina baa gabar ka guursay ama gabadhiina baa leena ka guursay. dadka waxa isku tiin in-laws, xidid baa tiin. casharka intaasan kusoo gabagabaynaya halka ka daawanaysa waa Hikaaji. qofka ku soo jeedinaya mar labaadna waa Muxyidiin. casharkan cashar la mid intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabad iyo nooli kulante. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.